tobanka bisha May sanadka 2026. haddaba barnaamijka waxaynu ku soo qaadanaynaa wararkii iyo akhbaaraadkii ugu waaweynaa ee soo kordhay tan iyo intaynu kala maqnayn. qodobada barnaamijkaanu idinkugu hayno waxaa ka mid ah Mareykanka oo sheegay inuu geeyay jasiiradda la yiraahdo Jabal Tariq ama Gabrelt oo Ingiriiska uu leeyahay, taasoo markaa ku dhow wadanka Morocco, sidoo kalena Spain qayb ka mid ah. waxaana la sheegay markabka nuclear-ka inuu yahay nooca gujiska ah oo badda hoosteeda mara. waxaana la sheegay inuu wato gantaalo qaarkood nuclear ay yihiin. haddaba xaggee la doonayaa in lagu dhufto? ujeedada halkaa loo geeyay markabka nuclear-ka wada maxay tahay? wararkii ugu dambeeyay sheekadaas barnaamijkan idinkugu soo gudbin doona. Israa'iil oo qiratay askar inay ka dhimatay kuwo kalena ka dhaawacmeen markii dagaal qaraar maanta ay la gashay xoogag ka tirsan Xisbullah koonfurta Lubnaan. iyadoo qaybaha dambe ee barnaamijkan aanu ku eegi doono akhbaaraadka iyo wararkii ugu dambeeyay xaaladda Iiraan iyo marinbiyoodka Hormuz halka ay wax marayaan. qodobadaas aynu barnaamijkeena caawa ku faaqidi doonaa. inta aan ku jirnana waxay meel kastood naga daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamijkeena habeennimo. waa habeennimo Isniina Talaada soo galayso, taariikhduna tahay 11 May. haddaba wararkii iyo warbixinadii ugu waaweynaa ee soo dhacay tan iyo intaynu kala maqnayn ayaynu barnaamijkeena ku soo gudbinaynaa. ugu horeyn waxaynu ku bilaabaynaa qaar ka mid ah warbaahinta caalamka ayaa ka hadlaya markab nooca gujiska ah oo dhulka sagxadda hoose ee badda ku socda oo nuclear xambaarsan, gantaalo nuclear wata, ayay Mareykanku waxay u direen gobolka bariga dhexe, isagoo hadda ku sugan jasiiradda Ingiriisku leeyahay ee Spain ka tirsan ee la yiraahdo Jabal Tariq. halkaasuu joogaa, halkaas ayuu caawa ku hoyanayaa. marka su'aalo badan ah ku wareegsan yaa la handadayaa. ninkii Trump ahaa bootadiisii iyo handadaadiisii markab diyaaradaha xambaara, diyaaradaha waaweyn B1, kuwa bambooyinka la yaabka la tuura way u shaqayn waayeen. hadda marka maxay maraakiibta nuclear-ka ridaysa aanba soo wataa weli. Iiraan waraa haysta wixii horoo dhan meela iska saartay. hadda marka maxaa lagu waabinayaa? maxaa lagu handadayaa? nuclear-kii runta ahaa lagu handadaa markaan. marka sheeko marka waa soo kululaanaysaa, xaalku halkaasuu bara. sheekadan marka goormay ku soo aadaysaa? xilli Iiraan ay waxay rabtay inta qortay Trump u dirtay tiri waxaa rabta samey, isaguna uu xanaaqsan yahay. marka halkaas marka maxaa ka dhici doona? arrintan muu shaqayn doontaa Trump? hanjabaadan iyo cagajuglaynta nuclear-ka aan wataa markan ah ma u shaqayn doontaa? kuwii hore waa shaqayn waayeen. haddaba markaan idintuso telefishinka la yiraahdo Sky News qaybtiisa af carabiga ayaa wuxuu qoray warbixin uu leeyahay iyadoo wadahadalladu ay mugdi soo galeen u dhaxeeya Mareykanka iyo Iiraan, ayaa dhanka kale Washington waxa ay dirtay markab gujis ah oo nuclear ah, waxaana uu hadda ku sugan yahay jasiiradda la yiraahdo Jabal Tariq ayaa la yiraahdaa. haddaba warbixin laga soo xigtay ciidamada badda Mareykanka waxay sheegeen gujiskooda nuclear-ka ee la yiraahdo USS Alaska iyo isagoo ka mid ah gujisyada nuclear-ka Mareykanka ee la isku yiraahdo kooxda Ohio ayaa waxa uu hadda ku sugan yahay jasiiradda la yiraahdo Jabal Tariq. waxaana la sheegay in dhaqdhaqaaqa gujiska nuclear-ka wada ay tahay mid naadir ah oo uu mar walba aanu dhaqdhaqaaqin oo uusan meel iska aadin ilaa mar naadir ah oo hawl muhiim ah uu u baxayo mooyaane inaanu baxaynin ayaa la sheegay. waayahay jasiiraddan marka waxaa la Jabal Tariq af Ingiriisigana waxaa lagu yiraahdaa Gabrelta. marka Ingiriiska iskale Ingiriiskay ma ay hoos tagtaa
marka Isbaynna waa ka mid tahay halkaasoo markabka nuclearka caawa ku hooyanayaa sida laga soo xigtay maraakiibta ciidanka badda Mareykanka waa tahay marka handadaadaasaa marka socota markabkan sidiisana USS Alaska la yiraahdaa koox maraakiiba oo Ohio la isku yiraahdo ayuu ka tirsanaa nuclear waana naadir la yiri naadirku waa wax marsoo dhac ah inuu dhaqaaqo oo meel aado sababta marka halka loo keenay bariga dhexe in lagu handado Iran in lagu handado oo Iran haye markan bahashu nuclear gaartay amal in loo handada la rabaa marka sheekadan wixii ka soo kordha kulay waa arki doonaa barnaamijyada dambe ayayna ku soo qaadi doonaa dhanka kale Hormuz warar cusub oo soo kordhay ma jiraan inta aan ka ahayn warbixinadii hore in maanta markab qadar leedahay la fasaxay inuu halka ka gudbay oo gaas waday xaaladda kalena wali way degan tahay Mareykanka dhankiisa wax wara oo ka soo baxay Hormuz ma jiro Iran xageeda caawa wax cusub oo Hormuz iyana ka soo baxay ma jiraan aan kala joogna lagu kala joogaa meeshaas hawshu halkaas ay maraysaa dhanka kale Iran gudaheeda markaan u soo noqono Iran waxay leeyihiin waxa la daldalay oo la dilay nin Irani ah oo u basaasayay CIA-da iyo Mossadka Mareykanka iyo Israa'iil u kala basaasayay sirdoonadaas u basaasay ninkan waliba nin iska caadiya ma ahayna sida warbixinta ku qoran hadda aan arkayo waa nin caalim ah oo fiirsada nin khabiir ah oo caalim ah oo cilmiga satellite-yada iyo waxa kan iyo yaqaanay oo ka shaqeynayay Irani ah kaasa inta la isticmaalay ayaa basaasa waxyaabaha qaar waa la yaabaysaa dadka qaar aqoon-yahana nahay professora nahay kana nahay kaasa nahay dad Ilaahay soo hanuuniyay waa iska jiraan fiican laakiin inta badan dad kalaaba la shaqaystaa ninkaas marka caalimka waxa lagu helay inuu xataa jaajuusay dadkii la shaqeynayay khubaradii kale reer Iran oo in la dilo oo rabo markii dagaal bilowdo in la beegsado rabo mushkiladaas ka waran xogtiisa la soo helay odagii waa la soo qabtay daldalaada lagu xukumay daldalaad dilkooda xataa xabad mar lagu dhufanay meel fagaara inta lagu keeno qoorta lagu galiyo xarig aan lagu sideynaa bas shanqan alira check markaas afka uurka keen nooga Iraniinta reer caadiya ba hadaba markaan tusoo wararkii ugu dambeeyay sheekada laga qoray Iran waxay dishay nin lagu eedeeyay inuu jaajuusayay Mareykanka iyo Israa'iil labadaba maanta isniina warbaahintu waxay sheegeen in dil markaasi daldalaada lagu dilay nin la sheegay inuu jaajuusayay Israa'iil iyo Mareykanka waxaana la sheegay in ninkani uu ka mid ahaa dadka khubarada ah magaciisana wuxuu ahaa Arfan Shakur Zada hadaba ninkan waxa la sheegay inuu u shaqeynayay CIA-da iyo Mossadka waxaana dhanka kale la sheegay inuu ahaa nin markaa dhanka satellite-yada aad u yaqaanay oo majaalka satellite-ka ka shaqeynayay oo caalim ahaa marka hawshaas iyaduna halkaas ay maraysaa warbixintaas marka halkaas ay joogtaa qaybta kale ku saabsan Hezbollah iyo Israa'iil dhagaha la iska garaacay caawa ugu dambeysay Israa'iil weerar culus ay qaad maanta la kululay hal dhintay iyo 3 dhaawacantay sheegatay intaas mar walba waxay leeyihiin dadka wax falaqaynaya hal iyo laba iyo markay sheegato xisaabtu inta ka badan waa la soo kululay nimanka diyaarada daroona nafta looga qaado nimankan mar taangiyadooda la gubo mar askartoodii lagu ceyrsado mar diyaaradahan daroonka ay qaati ka joogtaa Israa'iil haddaba markaan tuso wararkii ugu dambeeyay sheekada laga qoray wargeyska la yiraahdo Ra'yul Yawm ayaa caaw wuxuu leeyahay hal qof ayaa ka dhintay ama askari saddexna way ka dhaawacmeen askar Israa'iiliyiina kadib markii diyaarad daroona ay rasaas ku riday Hezbollahina waxaa la sheegay inay diyaaradaasu inay lahayd Hezbollah haddaba dhanka kale iyaguna waxaa la sheegay weerar culus inay ku jawaabeen 4 qof ayaa shahiiday iyagana koonfurta Lebanon
Israa'iil waxay qorsheynaysaa inay sii qabsato dhul dheeraad ah oo dhinaca lugta ah howlgallo ballaaranna ay halkaa ka samayso ujeeda saddexa naga dhaawacantay midaa naga dhintay iyaguna afaray dileen marka meesha dagaal culus marka ka soconayo inay isballaariyaan ay rabaan xisbullah waxay diidaysaa inay dadkan isu soo ballaariyaan haddii la soo ballaariyo dhulkaaga la qabsado see uga saaree beri qaaba uga saarta male marka intii tabartooda jugtaasaa laysku hayaa waa la isgaraacayaa marka xisbullah iyo iyagu halkaa way u tuurataay dabaqadan xayisiisa kadib waxaan galaynaa wixii warara soo dhaa barnaamijkeena habeennimo qaybihii ugu dambeeyay barnaamijka aynu maraynaa haddaba qaybtan ugu dambaysa wararkii ugu dambeeyay ee soo dhacay waxaa ugu waaweyn wasiirka gaashaandhigga ee dowladda Belgium ayaa ka hadlay kulankii wasiirada maartay qorshaha Yurub ee wasiirada gaashaandhigga ay ku kulmi doonaan waxaana uu sheegay in ay ka shaqeynayaan tallaabooyin ay kulaha miinooyinka kaga saarayaan Hormuz meesha adoo soo taagan oo indhaagu shantii beerar ugu sheegaa waxa meesha laga qaban karo iyo cidda miina ka saari karta iyo cidda miinada gashatay waa la ogyahay ninkan Belgiumka marka muxuu ku leeyahay waxaan ka fakaraynaa sidii amiinooyinka Hormuz uga saari lahayn maraakiibtu si nabadgelyo ku mari lahayn dowladaha khaliijkana aan u saacidi lahayn u kaalmayn lahayn waxa dayba af ku kooban tahay oo intaas kaliya tahay maxaa Mareykan gabgable oo ilaa markab nuclear ugu sii wataa meesha nimankan cidda ay wax u sheegayaan ala fahmi waayaan lagu leeyahay nimanka Yurubiya kaliya caadi ba marka Britain kula leeyihiin Ingiriiska iyo Faransiiska hogaaminaya ilaa 40 ku dhawaad dowladood wakiilo ka socda oo wasiirada gaashaandhigga isku imaan doona waxa marka laga shaqeynayaa sidee Hormuz loo furaya marka hawshaas halkaas maray Iran oo dhaarsan tahay markabkii meelaha ku arko nagta ka saaray Ingiriis iyo Faransiis meelaha soo marmara aanay waa noo taala Belgium xagu jooga Mareykan la qarabsaday Ingiriis iyo Faransiis la handada abu Belgium oo asaga dhanba xaafad yar oo meel yar kooban ku jira xagu jooga tabartaas marka lagu hanjabaya barnaamijkii waa laga intaan markala kulmayno like garay oo share garay barnaamijka axsaabay nabadgelyo